xildhibaan mahad salaad oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ee ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo ku aadan shirkii wadatashiga ee dhuusamareeb xalay lagu kala tegay. Mahad salaad ayaa dhaliisha dusha ka saaray madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu shaaca ka qaaday in isagu uu markaa ka socon waayay shirkaasi. Xildhibaanka ayaa sidoo kale xusay in wax laga xumaado ay tahay in lagu kala kaco shirka isla markaana madaxweynuhu uu fashiliyo gogoshii ay dhigtay Galmudug. Gudoomiye ka socda Jubbaland tagi maayo Garbaharey wax la soo shirtago ma ahan ee Farmaajo wuxuu raadinayaa marmarsiyo uu shirka dhuusamareeb afar ku burburiyo waana wax laga xumaaday in Farmaajo ay Galmudug magac uga dheelo mar labaadna uu fashiliyo gogoshii ay Galmudug dhigtay sidii hore u dhacday shirkii dhuusamareeb 3 ayuu yiri xildhibaan Mahad Salaad oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook. Sidoo kale waxa uu intaasi ku sii daray in go'aanka Farmaajo uu ahaa in Axmed Madoobe maamulkiisa waxa diiday beeshayda halka Axmed Madoobena uu markaa ku adkaystay gudoomiyaha degmada hal lagu celiyo magaalada Garbaharey ee gobolka Gado. Soomaalidu waxa ay markaa ku mahmaahdaa hasha maqaarka diidayso meelo daldaloolaya ka dayda gudoomiye ka socda Jubbaland tagi maayo Garbaharey wax lala soo shirtago ma ahan ee Farmaajo waxa uu raadinayaa marmarsiyo uu shirka dhuusamareeb afar ku burburiyo waana wax laga xumaado Farmaajo Galmudug magaca uga dheelo markii labaad iyadoona shirkii dhuusamareeb 3 sidan oo kale uu sameeyay. Madaxweyne Axmed Madoobe Deni Qorqor xalay annagu aragnay waxa kaliya Axmed ku dhaganaa waxa ay ahayd gudoomiyaha degmada hal lagu celiyo Garbaharey si guddiga markaasi ugu suura gasho in ay meesha tagaan doorashadana ay u qabtaan. Farmaajona waxa uu rabana waraaqahan ha ku qorto halka Farmaajo warkiisa uu ahaa Axmed Madoobe in maamulkiisa ay beeshiisu diiday in ay maamulaan. Marka waxa in la isweydiiyo madaxweynuhu ma afhayeenka beeshiisa mise waa madaxweyne Soomaaliyeed oo la wada siman yahay dalka iyo dadkana mas'uuliyad ka wada saaran tahay walle midkaani habaar qabe lagu sirmay ayuu markaasi hadalkiisa ku soo gunaanaday xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah golaha shacabka ee Soomaaliya. Fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channelkan Wamo Media aad soo booqato hanaga ilaawin subscribe share like gambalelka furo si aad u rukumatid channelka Wamo Media waadna ku mahadsantihiin daawashada wararka aynu halkan soo gelino. Mahadsanidin.